noqday sharnida sakalarooriyadu ekida hamasha eedeedka oodnida ilxumaaneedka awdnida. السلام عليكم أصحابتا عاو إي أصلو محا إذين وذا محا سليسين دينك وبركاته كسر دوار جلال كيجا أنا بيتا إسعاو برنامج كي موتيفيشنال انترفيو وصدولي إنتو كسر دقيقة نوروي أصلا وجيجان بدل ما يكرنا أنا أملينا حمدة هم دكور وحبذا المعركة يقول بدل ما شرح لي حمدة صباح يا أي عاو هنا عاو معركة سؤال معركة xiiso badan iyo waxaan wadaa waxyaabo badan tiim xamda iga dhex hadlooya caawa soo su'aalo badanaa wadaa xamda soo dhawo janalkayga maasha allah aad iyo aad u maasta walaashay canab waa ku dhawaa channelkaaga waxaan kugu hambalyeynaa inuu channelkaagu yahay channelkii ugu horreeyey ee laga wareystay su'aalo aniga igu saabsan la weydiiyay dadku aad u dharraan because ma ii qof mataqaana su'aalo badan ka dhex buuxaya jira harjana su'aalo badan taageerayaashaada iyo taageerayaasheeda macna ku sulay qarreena caawiyo didoontiin hana leen naxariis bas casha la soo waday ka bacdina interviewgas waa lagu gaabay anaga surprise ka jeclahay marka suleeqa oo kaamino womanteena iyo xamda suleeqa ku mahad celinayna adigana sida quruxda badan iyo dulqaadka aan ugu duubaysid ma had celinta laakiin gadaal ina odhigay ahayd okay xamda su'aasha koowaad oo ku weydiinayo horta waxaan rabaa in badan way ku taqaanaa in badan ma ku yaqaanaan so in isbarti inta aan ku aqoonin soo dhawaada magacayga waa xamda hamid dikir waxaan rajaynayaa in dad badan yaqaan meesha ku jiraan way dhici kartaa in dad badan ay aqoonin aysan jirinin waxa ahay hooyo Soomaaliyeed degan dalka Norway youtubered ما شاء الله يوتيوب وحمد همد ديكور كل وحلا يابا قبلكين أي وأركين تيك توك يا ميلا بدن كسودو هذا أنت أنا أقولني برشة وناكس معي وحمدي أنت إتقان ومحسنتي حمدة نوروي قرمة إمارات ما قصنا عن ودن كان دقنته نورو حق ماضي لبضي كوني طبعا كي بيش طبعا كي طبعا فتح طبعا هذا جوك تاع ما شاء الله أنا قام حيدي سوي ريسة وما لا يقول بس أنا حي ما 2090 فبراير وقتي أو وينتر ما ترتم سمر والله وحق ما إذا وينتر كسودوي هاي الحمد لله كورن نرشت النرويج ما يقول دنا صفر وتفتح حمد أهم ويدين ودم بدر يوروب وتجي ودم بدر كتجي آسيا كلا وحكتها قطر iyo دبي أفريقيا سوماليا دي بيقولوا قضاي ودمنا يوروب دور ودنا تبي ما شاء الله أنت إيمان النرويج ودمو بدن السومر ما هي بس محلها يعرف توس هي ما شاء الله الحمد لله هو يا طهي يوتيوبرنا وطهي marka barnaamijkeena maadaama uu yahay motivational interview ka waran wadankan waxaa rabaa horta inaan ku weydiiyo xamda ma shaqaysaa dadka su'aalaha ugu badan horta isweydiinayaan waxaa waaye shaqada youtube-ka hooyanimada waxaasoo kale siduu qofka iskugu wadi karaa waxyaaba badan aan isweydiinaya waqti hadda shaqaale miyihii laakiin waxaa ahay hooyo waxbarata oo jecel waxbarashada inay heer fiican ka gaarto oo hadda dib ugu noqotay dhowr sano kadib waxbarashadeedii sida ogtiin oo kale hooyo business haystana waa ahay marka aan qof ma u shaqeeyo laakiin ana business haysto businesskayga ana shaqaale isku ah ha boss asku tahay ha
youtuberna waa ahay hooyana waa ahay ardayadna waa ahay macalimadna waa ahay ciyaalkayga macalimadu ahay ما شاء الله أرتو حواي هوي والبوت congratulation عليها أنا هوي والبوت ما شاء الله معلمة واي هذانا ولا سيكلا معلم سين يعني هويك so كورا مركز شغالة يوتيوب يو إنا أرضك هاي إنا business كلو وضع والله horta waxna wax waxa waaye oo qofku jecel yahay oo hubbigiisa aniga shaqadayda markii waxbarashadayda qayb laga fiiriyo waa designer oo waxa ahayd guryaha design gareeya marka design-kana ma aha shaqo asbax kasta kaleys waa sawirro aad qaadaysid waa wax aad design gareynaysid waa wixii aad samaysid oo ku arkaysid muuqaal marka maadaama anigu dadka sawiraanta qaada ahaa wax aan sharaxo wixii sawirro ka qaado kala isgeliyo shaqadayda ay tahay inaan wax qurxiyo taas ayaa waxay hobbigayga ka dhigtay inaan duuba jeclaado shaqo easy ma aha laakiin waa hobbigayga kama caadso waan jeclahay حمدة ما دام أو حبرشة كجرت وحبرشة هذا أنت وصعدت جول كأجنبية محاربة فيوجر كائنا نقطة waxbarashadayda waxyaalaha waxaa jira aan jeclahay oo haddaba inta badan youtube-ka aan ku soo bandhigo gabdhaha soomaaliyeed ay ugu barteen taasaan rabaa inaan heer jaamaad ka gaaro waxaan rabaa inaan barto sida loo xalliyo khilaafka faamilada ama qofka problemka markaas haysto ama qofka nolosha ku guuldareystay adiga dadka sida dhibka looga saaro oo noloshooda loo qurxiyo inaan barto aan jeclahay psycholog maaha laakiin family therapy aan noqdo sansamaniya aan bararabaa sansamaniya family therapy soo galaysa okay so how social work waxay noqonaysaa way balaaran tahay dabcan aad marka qaybta familiyadaan rabaa inaan therapy oo kale inaan shaqaysid caruuraha dhalinyarada ee familiyada hooyooyinka aabayaasha وانا waxyaalaha hadda aan jecel oo buugtooda aad u akhriyo taasoo gabdhaha u dhiirigeliyo waa waxa qof jecel kaliya dhageysto marka xaggaas su'aalka weydiino maxaa isdhehaysaa aan dhihi karnaa maxaa kugu dhiirigeliyay inaa horta faamiliyada ka hadashid iyo oo haddana aad rabtid for future inaad baratid wax oo maaragtay kugu dhiirigeliya ma jirto faamilada inaan ka hadlo waxyaalaha u dhiirigeliya waxaa jirto waxaan arkay aniga ka xamdi ahaanteeda iska hadlo waxaa ku soo koray aabala'aan aabbahay allah u naxariisto oo cod ku jiro dhintay waxaa ogahay muhiimadda ay leedahay aabbaha inuu ilmaha ku ag horaan marka waxaan rabaa in xataa hadday dhacdo in familiyada soomaalida burburaan oo ay kala tagaan inay isfahmaan inay iyagoo kala tegay ee carruurtooda u wada korsadaan ayagoo wada nool sida norwejiga camal oo hooyadu ay fahanto inuu cunuga aabiis u baahan yahay aabbahuna uu fahmo inuu cunuga u baahan yahay hooyo faraxsan oo maskaxiyan iyo jiriyan buu caafimaad qabta marka waxaan rabaa inaan ka shaqeeyo in familiyada soomaali ayagoo kala furay ee isfuray ee wada shaqayn aad u fiican dhex marto in hooyada iyo ilmahooda wada shaqayn fiican inay dhex marto oo cunuga lagu soo koriyo naxariis iyo raxmad sida u noqon ummad caafimaad qabta si fiican waaye programkaas horta hadda aad ka wadid program fiican waaye gelintii wixii fiican oo dhan loo kugu support gareynaynaa as gabar Soomaali laakiin ma la dhihi karaa hal su'aal oo waxaa jirto ama gabar aan sheekaysanayna hadal ay ugu dhahday su'aashaas ka dhex weydiinaya gabadhaas xamdi doctor Norway joogta Soomaha waa fiirsan jiray laakiin waxaan u dareemay gabadhaas markay programyada ay ka hadasho in annaga gabdhaheena Afrika ku nool oo kale ayna quseynin inaa gabar noqotid saristaandii nolosheeda gooni u taagan gabar karti leh gabar isku filan gabar sidaan programmada ay ka hadasho dhan wasted time on me way dhahday gabadhaas aniga maxaa dhacay gabadhaas ay ka hadlayso ma noqon karo maantana waxaa laga yaabaa dad badan inay kufiirsanaan Afrika jooga maxaa is leedahay maxaa hadda su'aashaas kale uga jawaabi lahayd programkaas gabdhaha Afrika dhiirigelin ma u noqonaa programkaana أنا واحد أمسنا هذا قبلنا أفريقيا توكتي قبلنا يوروب توكتا إني أبا هنتهاي إني سلسلة جيك نقطة اللي جويد بإسمات قبل أفريقيا توكتا صدق waxaan ka soo qaadanaya hooyada Yurub joogta maanta haday kala tagaan ninka qabo ilmaheeda uga walwalinayso in laga qaato oo aabaha ku xoogo uma walwalayso inay baahi u dhintaan uma walwalayso in qof bini aadan u baahato subaxiba soo shalay tagaysa nolol dalbanaysa waxbarasho friyana way haysataa haday taa hooyo fakaraysa dhakhtar friyana way haysataa sikaloogta u tagtay ku nafisi kartana way haysataa
laakiin gabadha Afrika joogtaahi waa ayada gabadha u baahan inay isku tashato waayo gabadha Afrika joogta markay ninka kala tagaana gabadha waxa laga yaabaa in laba caqabad imaado inuu ninku dhaho carruurta soo wareeji haddaad waxa safahaysan ama carruurta qaado ma kugu biilaayo laakiin haddii ay tahay hooyo markaas salisandiga oo ama wax baratay ama intii la qabay nolosheeda wixii yar soo galay wax meel ka dhigatay ama at least ilaa maris baratay oo ilmaheeda haysto ama harqaantulo baratay ama sida loo shaqeysto baratay waxaan aaminsanahay inaysan biri qof bili aadam u baahnaanin marka waxaan aaminsanahay in dhiirigelinteeda moor inay anfacayso gabdhaha Afrika jooga waxaan rajeynayaa inay gabdho badan jawaabta heleen inkastoo haddana maanta as dhahay gabdho badan horta way hormareen gabdho badan oo Afrika jooga oo aqaana qaarkooda jiro qaar badan social media ka arko oo aniga motivate gareeyaanba oo dhiirigelin oo dhaho maasha Allah gabdho badan maanta way isbedeshay maskaxdooda absolutely so waxaan aaminsanahay insha Allah sidaas aad sheegaysid in qof kasta maaragtay dhiirigelin uu u baahan yahay gabar kasta dhiirigelin u baahan tahay gabar kasta inay isku tashatay u baahan tahay gabar kasta inay noqoto hooyo lugaheeda ku taagan u baahan tahay soo micnuhu maahan in hooyooyinka Yurub jooga kaliya oo wax kasta dul saaran yihiin u baahan yihiin inay noqdaan hooyo silisandiga waxa u baahan hooyada mataqaana wadanka joogta oo u baahan tahay hooyada Yurub joogta u baahan tahay soo hooyo kasta aniga waxa kula tali lahaa inay nolosha ay maanta haysato inta ay haysato iyo caafimaadkeeda iyo waqtigeeda saacad kasta ay uga faa'iideysto wax nolosheeda biri horumari kara halkaas mid kale markaa dhihi karaa hooyada marka la dhaho oo Soomaalida kale ha noqoto hooyo oo maxaa dhahay ayada lugaheeda ku taagan oo qof u baahneen oo silsandi ah ma la dhihi karaa marmarna mas'uuliyad oo qaadi lahaa qofka oo nolosha la qaybsatay in meesha ka baxayso oo hadhowdin ay ku noqonayso sida hadda hooyooyin badan Soomaali sameeyaan ana horta inta badan hooyooyinka Soomaalida waxa arkaa fikirkeyga inay silsandi iska yihiin waxaa dhacay waxaa arkaysaa meelaha xanaanada ayaga ilmaha wada meel kasta ayaga taagan meel kasta naaka karti badan ma jirto marka la dhaho mentally ahaan iyo physically ahaan boo Soomaalida way dadaal badan maanta dhan way taagan ma badaalaan waa machine dameen 24/7 laakiin ma la isdhihi karaa markaa fiirsa caafimaad ahaantooda iyo waxyaabo badan saxda social media ka aragno inay hal mar oo kale klikeeyaan oo kale hooyada sidee wax badan ula qayso ma hadasho ma la hadasho sidoo hal mar ay qarxo nafteedii way ilaawday daalka ka batay labada dhinac way u daalantay mentally iyo physically hal mar ay qarxaysaa markaas waa too late way adag tahay kadibna society-ga ku dhex nooshahay ma fahmayaan family-ga fahmeen ilmaheeda xitaa fahmeen soo ma la dhihi karaa marmarna mas'uuliyadda badan ee silistandigaas ba inuu problem nagu noqdo horta waxaa jirto muuqaalkayga oo gabdho badan igu dhaleelaan gabdho badan igu taageera oo dhahayay guriga meesha ugu qurxan ka seexo cuntada ugu macaan adigu cun ilmahaaga wixii aad sii lahayd wax ka fiican adigu cun waayo markii mihiga la joogo dadka mihiga waxaa jiro ama iska dhahno meelaha dameerka la rarto kale ama oorka la rarto kale aada loo nafaqeeyo cunto gooni loo siiyaa adigana hooyadu waa mashiinka guriga si kastoo aabaha dunida ugu fiican ku qabo hooyada ayay wax kasta inta badan ku dhacaa marka aniga waxaan ba idhaahdaa gabdhaha training aad cunto fiican cun hurdo fiican seexo guriga oo isdhex yaala naso adiga marka aad noqotid qof nastay oo wax awooda ayaad wax qaban kartaa marka aniga silisandiga gabdhaha noqda aan ka hadlaa waxay tahay inay gabdhuhu ay dhan waxbarasho iyo dhan qarash iyo dhan caafimaadka laftirkiisa waa inaad silisanti ka noqoto oo noqotid qof caafimaad qaba fikrad xora haysta mataqaanaa isku tashada inaad noqotid hooyada kartida badan waxay u baahan tahay mararka qaar in inta wax kasta isdhex dhigto ay seexato farasiisa hadda ka hor daawada canabey oo dhahayo waxaa la dhahay ma noo sheegi kartaa meeqa sana jirtaa markaas dhahday waxaan jiraa 65 sano waxaa la dhahaa sirta ka dambaysa ma noo sheegi kartaa waxay dhahday haddii ay dhacdo inaad 30 daqiiqo waqtigii aan seexan jiray aan ka daaho maalintaas waan gudaa nafteeda cunto fiican aan siiyaa tareenna aada nafteedaan jeclahay marka waxaan aaminsanahay hooyadu inay ayadu nafteeda daryeesho mar ay ilmaheedii gurigeeda daryeeli lahayd waa tala aad u fiican waxaan rajeynayaa inay hooyooyin badan ka faa'iideystaan